السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام walaalahey. Snowy day barafka quruxda badan maanta banaanka idin soo saar wax yar maxaan rabaa inaan lagu baxsintaan shaqada bilaaban ka hor inaan soo lugeeyo aan dhahay yaa wow barafkan la fiiriyo oh my goodness inaan istaago oo duubaa fiicanay barafkan bal ila fiiriyo icicle-kan meesha saaran geedihiisa ay noqdeen barafka dhulka cad caruurta saakito waa la nadiifiyey meeshaan mujeedido haddaan la nadiifin lahayn there's no way aan lagu baxsigaan soo aadin so walaalahey maalintii ugu horeysay uu isna noo soo dhacay waa reer Toronto haddaan nahay waa welcome choice ma lihin noloshaa sida ama ogtahay lagu baxsigaan soo aaday banaanka runtii ayaamahaneeto dhan waxaan sameynayay caajisley jaranjarta up and down umbaan sameynaya ma ogiya I wasn't going for my walk maalintaanaytu barafka saas soo dhacay waxaan dhahay oh feel so good weatherka horta ma qabow badneen balse barafkaa soo dhacay soo maaha so I decided inaan lugeeyo lagu baxsigaan aado maalin arbacay ahayd qashin day garbage day ayaa noo ahayd anaga garbage-kana ka qaadayay so barafka geedaha dhan meelaha dhan u qabsaday insha allah future-ku waa idinla soo duubi doonaa too saa u aragtiin si u kala duwan yahay hadda baraf badan mayaal mujeedada geesaha sometimes waxaan ku dhahay geedaha si caatacaat u noqday ujeedaa springkiga waan idin tusinayaa not spring fallkana waan idin tusinaya insha allah few days ago weatherku wuxuu ahaa so beautiful videogaas itan waa video kale waaye insha allah I don't know linkaan ku dhejin doonaa video dhammaadkiisa ka arki kartiina ka raacaysaa haddaa rabtina aragti videogaas kaleeto fallka aan tagnay waxaan tagnay xataa weatherku wuu fiicnaa jaakadaha xataa iska bixinayni waxaan tagnay meel oo hiking aan aadnay oo Mississauga ku taalo walaalahey Canada joogo especially Toronto ila jooga iyo Mississauga iyo maaragtay meelaha degan it's so good ilmaha inaad kaxaysid oo hiking meelahaas aad aadid insha allah idin tilmaami doonaa one day meesha tahay hadduu rabto ilmo walaalahey banaankaa socda qabo baana jiray kowdhaha marka hufi habtaan hayn doono hadda waxa kasoo sheegina okay hadda waxa kasoo sheegina videogan ee clipkan yarka idin wadaaga ayaa alla Soomaaliyay fudeedka maynu iska daayno wararku waxay sheegayaan gabadhan Soomaalida ah oo ku nool dalka Turkiga ayaa muuqaal ay soo duubtay waxay soo dhigtay barta TikTok-ga fiir meesha waa meel uu hogay barta oo TikTok la dhaho waa meel la yaabay dadka way iska hadlaan marka inantaa waxa u geeyay inay sheekadan isku dhex gasho ayaa la yaabay bal idinku ila dhageysta wax idinka yaabsiyaan maanta maqli doontiin waxayna muuqaalka ku leedahay baa la yiri gabadhii ay laamaha amniga dalka Turkiga soo bandhigeen ee lagu eedeeyay inay qaraxu ayada ka dambeysay waa qaraxii Istanbul ka dhacay ee 6 ruux ku dhinteen ayaa waxay tiri baa la yiri gabadhaasi wax dambi ah ma laha Allah hooyadaas Ilaahay ha badbaadiyo bal sheekadan bal dhageysidinku waxaad la yaabaysid waa Soomaha yab badanaa Soomaalidu meelaan loo dirsanin meel walba lugteel galaan dhibka ayadu ma geysanin muuqaal bay soo duubtay kadibna gabadhii warkeedii warbaahinta Turkiga oo dhan ayaa qaadatay gabadha Soomaaliyeed oo walaasheena ah I don't know inay hooyo tahay in kala hooyin baa ku hayay waxaan u rajeynayaa inuu Ilaahay ka badbaadiyo dadka because sheekadan waa sheeko weyn I don't know waxa faraha u gashatay but Soomaalida waxa la bixiyaa wax la dhaho degniin ma naqaan waxa sita anag madaxdeeg waa la raadinayaa booliskii iyo hay'adihii nabad sugidda oo dhan ayaa raadinayo waxaana lagu haystaa maxay hadalka ay tiri oo ahaa gabadha waxaan boolisku soo bandhigeen ee lagu eedeeyay inay ayadu qaraxa ka dambeysay dambi ma geysan dib ma ayna sameeynin bal ayada maxaa ku wata waxan ayadu ma dambi baara ma gabadhaasi si qaas u taqaani waxan maxaa ku wata qof dambi geystay oo qarax geystay oo lagu soo qabtay inuu qarax geystay ilaa waxaan xaqiiqada laga ogaanay ayada maxay oga soo hadlay Soomaalidu waxa weeyaan qof waliba wuxuu rabaa asagu inuu wax sheego waxaynu nahay anaga dhan wada wariyayaal wada dambi baare wada lawyer wada booliis hadda gabadhan booliiska Turkiga raadinayo waxaana soo dhan u sababaha arrin aan ayadaba qusaynin inay faraha la gashay nabigana sallallahu alayhi wasallam waa inoo sheegay in qofka muslimka wuxuusan dan ugu jirin inuusan ku mashquulin wax uusan waxayaan dan ugu jirin wax uusan shaqo ku lahayn inuusan dhaxgelin
marka walaalayaal afkeena aynu ka adkaano insha Allah. Assalaamu calaykum. armaanta waxay iga yaabsiyaan TikTok ku arkay waxaan dhahay waa inaan ila wadaago waxyaalahan ka arkay maanta TikTok waxaan ka arkay mataqaaniin gabar Soomaali ah oo Turkiga joogto oo ka hadlayso wixii ka dhacay Turkiga waxyaalo badan ay safahansanayaan jiraan waxyaalaha qaarkood toobiyada qaarkood waa inaad disclaimer sameysaa disclaimer aniga YouTube wax badan hadda ku jira waxyaalo qaarkood baan ka cabsadaa legalitygiisa subhanallah Soomaali inta adeegooda I don't understand. I can't wait to hear more Soomaalida kale ka hadasho but aniga run ahaantii gabadha aad iyo aad baan ugu naxay because it's not good waxay samaysay gabadha sheekada ay sheegto horta wax xun ma ahan oo dambi iyada inuu soo raaco ma aha gabadha wax xun maysa sheegin laakiin qaladaadkii ku hadashay oo dambi ku noqon kara wixii mataqaanaa sharciga adduunka daada aqoonin waxyaalaha qaarkoodna isaga hadashay ma wanaagsan moogta hadda inanta waxa qaladka weyn ka samaysadaa idin sheego idinka xataa way ugu raacaysiin oo malaynayaa hadalka weyn ee tiraahday waxa weeyaan WhatsApp groupkan ku jirno ayaana lagu soo diray video oo la yiri ma share gareyn kartiin ma kasii hadli kartiin waxa maxay tahay walaalayaal bal iiga waramataa barafkan wali lugaynaya qabowgiisii hore ag maray naag wanaagsan waay sharax inuu ugu siisan ka baqay because biyo waa dhulka ida kala wareejiya dhulka suu yahay ma ka hesheen bajiqiis biyo meeran waay marka alxamdulilah naag wanaagsan ay ahayd anyways qaladaadku waa weyn ku hadashay waa kaas weeyaan aniga taasaan aaminsanahay ayadaan isku keentay shada and I hope to God inaan wax walba qabsanin stepka soo okay so ducayna gabadhaas ducayna ilaahi subxaana watacaala dadkaan kale ayadaa qaladka isku keentay Soomaalida shuruucda haddaadan aqoonidooda waxa maaragtay dambiye kaa soo raaci karo waa laga fiican yahay inaad isaga show aad ka samaysatid view ku raadis miya I don't know anyways khayr idin rajeenaya qowga ugu batay telefoonka waa iska daminayaan gacmahayga saan gashto gloveska lugays badan ay sugaayeen maanta oo barafka adduunka geedihii waxa saaran waa ujeedin oo malaynaya ya kuwana qalqalayl noqday kuwana waa ka saxgaarkooda isma bedelo summer iyo winter basaas oo eegiyeen anyhow look at this tree snow is so fluffy camal buu noqday sidii maaragtay geedihii wow aniga caruurtiga darnaada soo maaha anyways dadkan snow u imaanin aan rabaa inay enjoy garayaan so enjoy snowga first day weeyaan after first day ma wala maqli karo wasaqdiisa all right wana video dambe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh